toddoba caruur ah oo aan qaangaadh ahayn oo arday ah ayaa waxay wada dileen qof aan qaangaadh ahayn oo la fasal ahaa. waxaanu halkan ku kala qaadanay magtii ubadka yaryar ee galaaska ku wada jiray ee isxiijiyey ee sabab isku noqday ee toddobada ilmooda yaryar ee sabigii ilmaha yare kale sabiga ilaahay ku sababay. waxaan leeyahay gudoomiyaha gobolka waxaan farayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan maxamed Cabdilaahi in uu shaarku ka yariyay uu galiyay shaarka weyn inuu galiyo wasiir buu qalmaayay horta inuu dilacsiiyo taawa farayna waan ugu ducaynaynaa horta walaaladeen waxaan leenahay wixii la idinku xukumay in badan oo nala yara meereysateen horaba maanta saamaxnaakum baynu kala nahay. waa go'aan farxad wadajir walaalnimo iyo turaale ku soo idlaaday oo uu sabab u ahaa hirgalkiisa gudoomiyaha gobolka Murudijeex Professor Axmed Maxamed Cadaada. inkastoo ay muddo qaadatay xal u helidda xiisadan iyo ismaandhaaf muddo u dhaxeeyay dhinacyo kala duwan ayaa maanta ku soo dhamaaday isafgarad iyo guul. dhacdada muranka dhalisay ayaa ka dhacday degmada Sayla kadib markii ay 7 wiil oo arday ay wada dileen hal wiil oo kale oo isku fasal ahaayeen, walow ay dhinacyadu dhibtu kala gaadhay dhowr jeer isku dayeen xal u helidda xaaladda taagan iyo kala qaadashada magta maadaama ay carruurtu dhammaantood ahaayeen kuwo aan qaangaadhin. haddana ma suuragelin arrintaasi waxaanay sababtay inay dhinacyadu isla soo-aadaan dhinaca maamulka gobolka Murudijeex. maamulka gobolka uu hogaaminayo gudoomiye Cadaada oo hawsha gala ayaa ugu dambeyntii ku guulaystay xal u helidda xiisadda u dhaxaysa dhinacyada. gudoomiyaha gobolka Murudijeex Professor Axmed Maxamed Cadaada oo dadaal xoogan geliyay isku soo dhaweynta iyo xal waara u helidda xaaladda isla markaana ugu dambeyntii ku guulaystay dadaalkiisa iyo hirgalka hawshaasi ee maanta madasha ka jeediyay hadallo kooban, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey marxaladii ay hawshu soo martay iyo sida ay go'aamada uga gaadheen xaaladda u dhaxaysay muddada dhinacyada, isagoona si weyn ugu mahadnaqay dhinacyadii ay dhexdhexaadinayeen sida ay u qaateen go'aamada ay soo saareen. geestiisa xogayaha fulinta ee gobolka Murudijeex Nagiib Faysal Carab oo siyaadkii hadalka gudoomiyaha ayaa kula dardaarmay mahadnaq kadib dhinacyada hawshu soo dhamaatay. halkan waxay isugu yimid xafiiska gobolka Murudijeex 5 qoys baan u jeedaa iyo qoys sababtay isugu yimaadeenna ay tahay 7 caruur ah oo aan qaangaadh ahayn oo arday ah ayaa waxay wada dileen qof aan qaangaadh ahayn oo la fasal ahaa. waa dhacdo ka dhacday degmada Sayla 23 bishii 9aad 2025. dhacdadaasi waxay ka dhacday dugsiga hoose ee magaalada Sayla. ilmihii ceejin feed laad waxay ku qabtaanba way wada dileen. ilmihii yaraa isagoo kooma ku jira ayaa la keenay dhakhtarkii muddo ka bacdina ilmihii waxay dhakhaatiirtu ay caddaysay in uu u dhintay nabaradii iyo jugihii iyo laadkii iyo feerhkii ay la dhacayeen 7 kale. anigoo ka yar xun 5tii qoys iyo qoyskii way heshiin waayeen. halka kan ay isla yimaadeen xafiiska kan gobolka Murudijeex waan isu soo dhaweynay masaalix iyo sulux iyo wanaag iyo walaalnimo aanu ka dhex abuuray. labadii dhinacna labadubana way qabsoomeen. waana ugu mahad celinayaa labada dhinacba taladii iyo sulixii iyo walaalayntii aanu ka dhex abuuray inay aqbaleen. waa dad sharaf leh, dad karaamo leh. labadii dhinacba way aqbaleen. dhaqan baynu u leenahay marka la isdhex kale ee sulux laga dhex abuuro in labada dhinacba ama dhinacyaduba inay isaqbalaan. annagana ka gobol ahaan sharaf bay noo tahay inaanu dadkayagii kala dhex gallo oonu sulux ku kala dhex gallo. laba meelood kala fog bay ay kala taagnaayeen xagga magta oo haddaan si toos u galo qolo waxay taagnayd 700 oo halaad 7 qof ha bixiyaan. qolna waxay taagnaayeen 100 halaad baa xaqna loogu leeyahay. sidaa darteed waanu isu keennay. waxaanu ku dhexdhexaadinay inay 100kii halaad ay bixiyaan, laakiin isla 5 qoys ayaa iyagu iskooda ugu daray
20 halaad haddaanu nahay gobolkii Maroodi Jeexna waxaanu ku daray anaguna 20 halaad oo kale anagoo ku ganaaxnay 5 qoys ganaax uga dhignay anagoo ku dhalinay in horena loogu iman waayay xilligii ilmuhu koomada ku jirayna loo iman waayay baaqii ay soo jeediyeen qoladana ay hore loogu iman waayay iyadoo ereyo aan markaa ay qolada tani ay dhibsadeen ay sheegeen ayaanu 20ka halaad ee dheeraadka aanu ugu daray 140 halaad bay noqotay taa dambeenu ku xukunayna way qaateen sharaf bay mudan yihiin 5 qoys waa 5 qoys oo kala qabiila sidaa darteed wayna aqbaleen 140kii halaad way aqbaleen sharaf baan ay leeyihiin qolada tana waxay ku mahadsan yihiin oo sharaf ku leeyihiin reer Cabane iyaguna waxay aqbaleen oo ay qaateen in 100ka halaad 5 kamida ee dhogorta waa 100 halaad oo dhogora iyo 40 lacaga 100kii halaad ee dhogorta ee geelaha 5 halaad bay ka daayeen wana la isku raacay iyaguna way aqbaleen 95 halaad oo lagu bixin doono muddo 5 bilooda ayaa halka lagu heshiiyay 95ka halaad ee dhogorta 5 bilood baa lagu bixinaya 40ka halaad ee soo haray waxa ayaa maanta mag horteeda oo la bixinaya oo lacagteedina ay hayaan marka laga reebo 10 milyan iyo 700 oo la raacinayo 95ka geela mooyaane lacagta intii kale way bixiyeen lacagta geela lagu kala qaatay waxa weeyaan hashiiba waxa lagu kala qaatay geela 100ka halaad hashiiba ay tahay 3 milyan oo shilinka Soomaaliland sidaasana anagu ku dhex joognay haddaanu nahay gobolkii aanu markhaati kaga nahay ilaahay baynu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaynu mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex oo arrintan inagu hogaaminayay oo isagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku ilhaamiyay xaqiiqdii 10ka bilood ee imika aanu joognay gobolka arrimaha ugu badan ee halka ka dhacay wax intan u taagi weynay aan nidhi arrinta waan ka farataagnay hay'adaha garsoorka iyo fulinta hal la geeyo birta hal laga aslo ma jirto inta badan ilaahay islaaxaas oo gudoomiyuhu nagu hogaaminayo ayay ku dhamaataa ilaahay baana mahad oo dhan iska leh waxaan kale u mahad celinaynaa reerihii ama qoysaskii walaalaha ahaa ee arrintan ay soo kala dhex gashay ee arrintan ay ka dhex dhacday oo wanaag iyo qalbi wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan ku heshiiyay arrintiina ku dhameeyay reerka qoyska oo ilmuhu ka baxayna waxaan ilaahay uga baryaynaa in wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay xubno kala duwan oo ku kala hadlayay afka dhinacyada dhibtu kala gaadhay ee xaaladooda xalka laga gaadhay kuwaasoo soo dhoweeyay go'aamada laga gaadhay ismaandhaafkoodii isla markaana si weyn ugu mahadnaqay maamulka gobolka gaar ahaan gudoomiye Cadaada mahadoo dhan ilaahay baa u sugnaatay talabaad barasaabka gobolka Maroodi Jeex oo arrin aynu isqabadsiin weynay oo muddo aynu isla yar meeraysano oo ubadkeennii oo ilaahay isku sababay aynu isqabadsiin weynay hawsha si wanaagsan inoo kala xukumay innaguna aynu qaadanay labadeenna dhinac isaguna mahadaasu leeyahay ta kale maanta sidaa barasaabku sheegay waxaanu halkan ku kala qaadanay magtii ubadka yaryar ee galaaska ku wada jiray ee isxiijiyey ee sabab isku noqday ee 7 ilmooda yaryar ee sabigii ilmaha yare kale sabiga ilaahay ku sababay hawshaasi maanta way naga soo dhamaatay si fiican bay nooga soo dhamaatay si aanu labadeeda dhinacba raalli ka nahay ayay nooga dhamaatay mar labaad ilaahay baa mahad leh iskeen afgaransiiyey maanta inagoo walaala ah oo halkeennii hore taagan ina waafajiyey arrinkii aynu isugu nime inaynu ka heshiino waxaa mahad gaara sii leh oona aad iyo aad si qiimo iyo qaayaba ugu mahadnaqaynaa runtii madaxda xafiiska barisaabka oo kow uu ka yahay barisaabku ilaahay bayna heshiisiiyey laakiin wuxuu ilaahay sabab inooga soo dhigay barisaabkeenna dadaal fara badan iyo isku jiidjiid fara badan iyo dulqaad badanoo inoo dulqaatay
inoo yeeshay baynu isagana u mahadnaqaynaa waxaanu u mahadnaqaynaa qabiilkaa walaaladaya ah ee gacantu ay naga gaadhay ee gacanta carruurtu ay naga gaadhay ee intaasoo dhan noo samraayey ayaanu iyagana u mahadnaqaynayna walaalayaal waa mahadsantihin saqiirka isdilay ee aan godobta lahayn waxaanu ka tacsiyadaynaynaa ehelkii uu ka baxay iyo Somaliland waanu ka tacsiyadaynaynaa si wanaagsan baanu u tacsiyadaynaynaa ilaahay samir iyo iimaan saadiqa ilaahay haynaga siiyo bedel khayr qabo barakalana ilaahay inanka uu ka geeriyooday ilaahay baa ugu tala galay sidan inuu ku baxo marka ilaahay samir iimaan ka ilaahay ha u adkeeyo arrintan marka aan ka hadlo bada saabka iyo ehelkaba waan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad waayo wax hadday dhacaan waxay ku dhammaadeen unbaa la yidhaa ninkaa ilmuhu ka dhintay baanu tacsiyaynaynaa ilaahay bedel khayri qaba inta u hadhay ha u geliyo taasi waa naga tacsiyey ta kale waxaanu u mahadnaqaynaa xilligu wuu gaabanyo idinku dheerayn maaye waxaanu u mahadnaqaynaa bada saabkaa isu keen jiiday ayaanu u mahadnaqaynaa isagana ajar iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo hawlahana allah ha u fududeeyo cuqaasha iyo reerkaa inanku ka baxay iyagana waanu mahadnaqaynaa waxaa la yidhi tol wada hadla heshiiye waynu isa soo jiidjiidnay aynu isa saamaxno gogol baynu ku wada fadhinaa dad wada dhashay baynu nahay dad aan meel u kale kacayn baynu nahay waanu idin saamaxnayna saamaxa waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxa soo afjaray guddoomiyaha gobolka bada saabka ayaa soo afjaray arrinkaasi si fiican buu soo afjaray waanu ku qanacnay labadeeda dhinacba annaguna wixiina noo soo qaaday waanu qaadanay walaaladeena waxaanu leenahay wixii laydinku xukumay in badanood nala yaro meereysateen horeba maanta saamaxnaakum baynu kala nahay arrinkaasi sida ay u sheegeen odayaasha iga horreeyey ayuu u dhacay inankaa yaree 7 carruur dishay horta waxaan u ducaynaynaa uga ducaynaynaa qoyskii way ka geeriyoodeen ilaahay samir iyo iimaan saadiqa allah ka siiyo aabihii oo halkan fadhiya ilmaha iyo adeeradiiba waxaan leeyahay bedel khayr qabo caama allah ku siiyo oo degdeg ah inteena kale ee arrintaas soo afjartayna khayrkeeda allah ina siiyo guddoomiyaha gobolka maamulka gobolka isagana waan u mahadnaqayaayo inkastoo aan anagu dacwo tegin horta deedu ku dacwo tagteen oo halkan ina keenteen anagu deedi maana keenay idinkaayna keenay haddana way dhamaato sidii uu ku dhameeyay guddoomiyaha u tagteen ayaanu anaguna idin la qaadanay ta kale waxaan leeyahay guddoomiyaha gobolka waxaan farayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi in uu shaarku ka yariyay uu galiyay shaarka weyn inuu galiyo wasiir buu qalmaayay horta inuu dilacsiiyo taa waa farayna waan ugu ducaynaynaa horta kulley walaalahayo waanu sir jiidsidano horaan isu afgaran weynay waxaase soo gabagabeeyo arrinkii dhameeyey guddoomiyaha gobolka miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro annaguna arrinka ducaad iyo aad ducayseen waan qaadanaynaa sabirna waan qaadanaynaa ninkaan sabrini waxba maaha waa ka samreynaa inankaasi ilaahay meeshiisii ubad kale ha noogu bedelo ilaahay meeshiisii inama kale ha ugu bedelo aabbaha